cunugeyga waa in isiiyaa then akala tageena then xoog waa liiga qaaday cunugeyga waa xasuusta maalinta cunugteeda la qaadayay waa soo baxsaday ani cunugteeda waa soo qaatay waa liiga daba imaaday waxaa tahay guriga abaayaa liiga daba imaaday cunugta xoog liiga qaaday hooyadiisa imaatay hooyadiis markay imaatay cunugta ayada qaaday then saasaa cunugta liiga qaatay ani okay cunugta meeqaa siinay jirtay marka lagaa qaaday awrada 4 bilood jirtay waa liigu qalortay cunugta 4 bilood jirtay markii laga qaadanay naasay nuugaysay dhig la'aan haysa xataa waa wacay hooyadii soo joogto hooyo waa ku kor ooyay waxa dhahay hooyo gabadhaadii ah cunugta 4 bilood jirta hooyo waa ku barya xataa naaska inta ka goonaay ee ogolaada inaan ii haayo waxay dhahday inta ka sheegana ma fiicna laakiin waxay u jawaabtay eray aad u xun oo qofka bani'aadamka qalbigiisa dhaawacayo dhowr jeer isku dayay kama harin waa wacay marka dambe waxay u jawaabtay waxa dhashay iyo waxa guduma qaaniye la markay inuu gali وحرسا يقول كذا حبر مع سا يقول كذا gabar kasta waxa uu sheegaa familkaaga waxay ka celiyaan hooyada abaha waxay ka celiyaan xakamad xadeeg maanta dhibaatadaana igu dhacday waxaan leeyahay gabar kasta hooyada waxay ku sheegtay qaado jeceldan la sheegaya wax jira maan because maanta hooyada warkeeda daa qaado lahay oo wax barashadeeda wada lahay dhibaatadan igu ma dhicin laakiin Allah subhanahu wa ta'ala ay qoray qadarka Allah cid bani aadan celi karto ma lahan dib ma lahan mid kasta mid kale waxa ay sheegay inta aabahood nool aabihiin maanta intuu idin nool yahay ka faa'iideysto please and please biri aabaha haduu garabkaada ka baxo qof bini aadan oo ku caawinaysa ma laha maanta aabihiin nool halahay waxa huba in cunugteeda isiga dheeraaleen oo 4 bil cunugteeda oo jirta dhigama qaadaleen laakiin dib ma lahan habaryaro mi maqashaa habaryaro ani waxaan ka ballan qaadaya oo ilaahay sanad iyo bar milaas qabnay okay marka uura u qaaday ilaahay u hoosiyay laba qof oo isjecel guri wada degan ba aheedeen oo maxaa lagu dhahaa qoys caadi ah marka maxaa dhibaatada maxaa dhibka maxaa keenay inaad ku kala tagtaan oo ilmaha ka qaato habaryaro horta laba qof bani aadanku waa horta anagu ma horeynin dad kala tagay ani asaga isfaan waa jiro iyo arrimaha rabin inaan inta ka bandhigo ani asina dhex galay then waxa go'aansaday waxa dhahay arrintan maadaama aan sameysay ani isfaan weyn waxa dhabo shal waa dartaa waxa u sameeyay dib ma laha waa igu qiimay weesay inaan kala tagnaa rabnaa waxa ugu dhahay dib ma laha waa kala tagnaa laakiin shardi familka horta arrinta gaartay dagaalka aad u weynaatay waxa dhahay cunugeyga waa in isiiyaa then akala tageena then xoog waa liiga qaaday cunugeyga waa xasuusta maalinta cunugteeda la qaadayay waa soo baxsaday عاتري سنبا ربت إنا عبتنين كدرادي تعالى أقبتي waaba caway baha waa hooyadeen way joogtaa dadka qaar xataa waa arkay koonteeda soo qoray gabadha suntu cabtay waa arrin sunta la sheegay waa u cabay سوق هبري وحر يسوق وحلا ربا إنا نفهمه اوكي قفكا waa jeclaan kartaa qof wax jecel adigu ugu ma horeynin qof isku dila adigu ugu ma horeynin laakiin shaydaanka anagu islaam ma nahna alxamdulillah la shukrillah dad ilaahay iimaan gali baa nahnay iimaan iyo islaamnimadaas aan cilinaysa ma ogi wax badan baa anagu gali lahayn dambi runta ku sheegay ilaan bilo aadina la yahay okay ninka waa jeclaatay waxaan rabaa inaan fahmo waxa kugu kalifay koow inaan suna cabto ma asaga ku diiday mise reerka ku diiday okay reerka markuu ku diiday sunta masuuqa aaday ma soo gaday gabar kasta waxa uu sheegaa familkaaga waxay ka celiyaan hooyada abaha waxay ka celiyaan xakamad xadeeg maanta dhibaatadaana igu dhacday waxaan leeyahay gabar kasta hooyada waxay ku sheegtay qaado jeceldan la sheegaya wax jira maan because maanta hooyada warkeeda daa qaado lahay oo wax barashadeeda wada lahay dhibaatadan igu ma dhicin laakiin Allah subhanahu wa ta'ala ay qoray qadarka Allah cid bani aadan celi karto ma lahan dib ma lahan mid kasta mid kale waxa ay sheegay inta aabahood nool aabihiin maanta intuu idin nool yahay ka faa'iideysto please and please biri aabaha haduu garabkaada ka baxo qof bini aadan oo ku caawinaysa ma laha maanta aabihiin nool halahay waxa huba in cunugteeda isiga dheeraaleen oo 4 bil cunugteeda oo jirta dhigama qaadaleen laakiin dib ma lahan habaryaro mi maqashaa habaryaro ani waxaan ka ballan qaadaya oo ilaahay